lix ka mid ah ayaa u dhintay qabowga barafka iyo dhibaatadii ay u geysteen ciidamada Greega 11 ka midna iyaga oo xaaladooda liidata ayaa xabsi loogu sii daray. waa muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku wajahna dalka Greega kadib markii ay ka gudbeen biyaha dalka Turkiga. kahor intaanay warbixinta guda galin daawadahana eegaya waxaanu ka codsanaynaa in aad like saarto page-ka na soo follow garayso si faafisa wararkeena si aad qayb uga noqoto dadka ku xiran page-ka Sahan News oo aysan ku seegin wararka aan halkan ku soo baahino. qiyaastii 6 ka mid ah muwaadiniin Soomaaliyeed oo ka gudbay biyaha Turkiga si ay u gaaraan dalka Greega ayaa u dhintay ciqaab adag oo ay marsiyeen ciidamada Greega, halka 11 ka midna iyaga oo sakraada halkii la dhigi lahaa xarun caafimaad loogu daray xabsi. 6 ruux ee dhimatay ayaa waxay markaas la kulmeen ciqaab aad u daran oo ay u geysteen ciidamada Greega kadib markii barafka lagu ciqaabay iyo qabowga kadibna laga saaray dharka, taasi oo keentay in uu dhiigooda istaago isla markaana wadnahoodu shaqayn kari waayo. halka sidoo kale doontii yareed oo ay saarnaayeen ay ka damiyeen ama matoorka ka fureen ciidamada Greega. wararka qaar ayaa sheegaya in qaar kale oo ka midna gunta badda ama biyaha badda dhexdeeda ay ku baaba'een iyaga oo ka cararayay qabashada iyo ciqaabta ciidanka Greega. sida ay warbaahinta u sheegeen 2 ka mid ah dadkii baxsaday ee ka badbaaday ciqaabta iyo gacanta ciidamada Greega. arrintan oo soo laabatay ayaa ugu wacan iyada oo dawladda Greega joojisay in gudaha dalkeeda dhanka biyaha laga soo galo maadaama qulqulka tahriibayaasha ee ka gudbaya dhanka biyaha Turkiga ay sii kordheen. dhibaatooyinkan dadka ay ku dhacayaan ee muhaajiriinta waxa ka mid ah Soomaalida oo iyagu tahriibka qayb ka ah, halka ciidamada Turkiguna iyagu marka ay qabtaan tahriibayaasha ay qabtaan xabsiga dhigaan deetana ay dib ugu soo celiyaan dalalkooda. balse ciidanka Greega ee xeebaha dalkaasi Greega ku sugan waa ay ka duwan yihiin siday u dhaqmaan ciidamada Turkiga. maxaa yeelay ciidanka Greega dadku waxay ku sameeyaan ciqaab keeni karta dhimasho sida haatanba ku dhacday 6 ka mid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed oo ay ciqaabta marsiyeen kuwaas oo ugu dambeyntii u dhintay dhibaatadaasi baaxadda leh. ma jirto cid wax iska weydiisay dilalka joogtada ah ee ciidamada Greega u geysanayaan tahriibayaasha oo ay ku jiraan Soomaalida. waxaana la oran karaa dhibaatadii ka dhacaysa Liibiya oo ilaa haatanba ka socota mid la mid ah ayay ku dhaqaaqayaan ciidamada dawladda Greega marka loo eego sida xun oo ay markaasi u jirdilayaan u ciqaabayaan naftana u dhaafsiinayaan muwaadiniinta tahriibayaasha ah oo ay Soomaalida ku jiraan. mana ahan markii ugu horeysay oo sidan wuxuushnimada ah u dhaqmaan ciidamada Greega. daawade waxaanu ka codsanaynaa inaad like saarto page-ka sidoo kalena na soo follow garayso si aad qayb uga noqoto kumanaanka daawadayaasha ah ee ku xiran page-ka Sahan TV. mahadsanidin.